Qeeladhaanta iyo dhawaaqa sii kordhaysa ee shacabka Soomaaliyeed ka muujinayaan habdhaqanka colaadinta shacabka. Rakicinta iyo boobka madaxda xukunka joogta ayaa hargaha goostay. Waxaan hadda soo baxday oo la isku raacsan yahay si caam ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobka uusan qabyada kaga tagi doonin ay tahay muddo xileedkiisan. Boobka dhulka danta guud, barakicinta danyarta, iyo in cunaqabataynta dadka gado oo ay madaxda dowladda federaalku u arkaan goob ay kaga bogsan kartaan dhaqaale burburkii iyo jabkii ciidan ee ka soo gaaray dhacdadii Raas Kambooni oo ilaa hadda madaxda sare u arkaan inay ahayd goob ay ka qaateen filan waa guuldarraa, taasoo ay hadda caddaynayaan ficilada xayiraadaha dadweynaha ee gobolka Gado. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa barakicinta madaxweynaha ee rayidka Gado oo yana halkii ay ka sugaysay buundooyin in loo dhiso loogu bedelay cunaqabatayna xanuun badan. Madaxweyne Xasan Sheekh barakiciyo cusubba 2023 ilaa maanta dhulboobka Muqdisho, barakicinta dadka rayidka oo badidood ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa si xooggan u kordhaysay. Waxa ilaa hadda laga kiciyay shacab Soomaaliyeed dhul ka badan 20 goobood oo dhammaan la xaqiijiyay inaysan hay'adihii dawladeed ee lahaa u baahnayn, balse laga iibiyay ganacsato kala duwan oo madaxweynuhu si toos ah galkan u maamulay, sida ay ku eedeeyaan mas'uuliyiin sare oo ay ku jiraan mudanayaal baarlamaan oo sheegay in madaxweynuhu uu yahay iibiyaha ugu horeeya ilaa qofka saxiixa leh, taasoo ka dhigan dullaalle ilaa saxiixle. Malaayiin dollar oo lacag ah ayaa laga sameeyay xaraashka dhulka danta guud, kaasoo ay digniino ka soo saareen madaxda mucaaradka, culimada diinta iyo bulshada rayidka oo isku raacay in dhammaan ficilada madaxda dowladda federaalku ay yihiin kuwa hareer marsan sharciyada loo maro iibinta dhulka danta guud. Waxayna madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqeen in dib waayaha dambe bal ugu xayiraan dib loo dhigto. Madaxweynaha ayaa u sheegay bilo ka hor qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo la kulmay inuusan bugcad bannaan oo ay dowladda Soomaaliya leedahay wareejin doonin haddii laga guulaysto oo dhammaan beecin doona hadda, taasoo hadda fulinteeda si xooggan loo arko. Dadkii u dabaaldegay Xasan Sheekh imaanshihiisa waa ka oohisiiyay 2022 Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hogaamiyay guluf ciidan oo looga soo horjeeday dowladda federaalka iyo madaxweynihii xukunka joogay, wuxuuna taageero hubaysan ka helay qaybo ka mid ah dadka uu hadda barakiciyay. Sidaas oo kale in dib loo doorto waxa uu helay aqlabiyadda xildhibaanada shacabkan hadda la barakiciyay codadkooda ku matalayay, waxayna u taageereen si indhala'aan ah ay qabaan qaar ka mid ah oo xilligan dhaliirsan. sidoo kale dadka rayidka waxa ay qayb ahaan si weyn u taageereen inuu duruufahooda wax ka qaban karo, balse hadda taas wax ka duwan ayay sheegayaan. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo kale ku noqday xildhibaanada saami qaybsigiisa ee ka hadlaya barakicinta shacabka ayaa sheegay in ficilada socdaa ay halis amni qaran abuurayaan, wuxuuna tilmaamay in dhulboobkan uusan hadda ahayn wax caadi ah oo uu gaaray darajada dambi qaran oo ay tahay maxkamada caalamiga laga raadiyo in laga dacweeyo Xasan Sheekh. Warsame waxa uu sheegay in dadkii deganaa dhulkii carwada qaranka laga jaray hoygii, biyihii iyo korontadii si shacabku oo dan yar loogu khasbo inay ka tagaan halkii ay degnaayeen 20 sano ee la soo dhaafay, wuxuuna tan ku sifeeyay dambi qaran iyo xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha. Way ka fakarayaan in madaxweynaha laga dacweeyo maxkamadaha caalamiga ee Afrika si xuquuqda shacabka loo ilaaliyo ugu yaraana. Gado, gobol dhan oo cunaqabateyn hawada lagu soo rogay iyo ujeedka laga leeyahay. Inta badan dhinacyada siyaasiyiinta ee gobolka Gado ayaa isku raacsan inta labada ay dowladda federaalku xanimaada ugu soo rogtay degmooyinka gobolka Gado ay ka dhigan tahay in lagu qarinayo fashilka dhinaca dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalka ay ku qaadeen ninka Axmed Madoobe, ayna u aragto goob ay nafi siyaasadeed ku dareemi karto, iyadoo ay weheliyaan dana siyaasadeed oo aan la aqoon sida ay u hirgeli karaan oo mas'uuliyiinta qaarkood ay ka doonayaan gobolka Gado, gaar ahaan sidii meel mar looga dhigi lahaa mashruuca madaxweynaha ee doorasho qof iyo cod ah oo ay sheegayaan mas'uuliyiin ka tirsan xarumaha dawladdu inay doonayaan in doorashadan ay ka qabtaan degmooyinka gobolka Gado. Jubbada Hoose waa lagu han waayay xanimaad diyaaradeed, laakiin Gado cidna dan badan kama leh. Inkastoo ay dowladda federaalku aad isugu dayday inay xayiraad geliso gobolka Jubbada Hoose iyo Kismaayo, haddana tan waa lagu guuldareystay in lagu hayiro xayiraadaha qaarkood sabab la xiriirta in mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanadaas ee labada gole iyo madaxda sare ee dowladdu ay diideen in go'aanadaas ay noqdaan kuwa meel mara si la mid ah sida Gado. Ilaa hadda ay xanimaadu u dul saaran tahay, waxaana lagu fasiray in labada dhinac ay kala matalaad wanaagsan yihiin. Gado halkii ay ka sugaysay in jidad iyo buundooyin loo dhiso, hawada ayaaba laga xayiray. Dadka gobolka Gado waxay la kulmeen sanado ka hor roobo mahiigaan oo kalifay inay go'aan oo meesha ka baxaan buundooyinkii dowladdii kacaan ku dhistay ee isku xirayay gobolkan iyo deegaanada kale,
waana meesha ka baxay marinadii ugu muhiimsanaa. waxay ka sugayeen dadkan in dowladda federaalku mas'uuliyaddii saarneed ay qayb ka qaadato oo dhismaha buundooyinkan ay garab ka geysato, laakiin halkii laga sugayay taageerada waxaa ka yimid in xayiraado loogu bedelo raashin qolkuraagana 2 duulimaad ah laga dejiyo Garbaharre. wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ayaa dhawaan ka sheegay gobolka in madaxweyne xasan sheekh uu wado tareen marin doono gobolka Gedo, balse dadka rayidka waxay u sheegeen in tareenka hortiis laga qayb noqdo dibdhiska buundooyinka. haddase dowladda federaalku hawada ayayba ka xirtay. garoonka Doolow waxa uu ka mid yahay garoomada ugu mashquulka badan gobolada dhaca xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya dhanka Kenya, gaar ahaanna Jubbaland, balse waxa uu xiran yahay muddo ka badan 30 maalin iyadoo ay dowladda federaalku kaliya xanimaada u saartay dadka rayidka, maadaama mas'uuliyiinta Jubbaland ay markaas u kala safrayaan Doolow, Kismaayo ilaa Addis Ababa oo aysan xanimaadu dhankooda saamaynin. dowladda ayaa bilowgii ku dooday inay xanimaadan saartay mas'uuliyiinta Jubbaland, balse hadda taas waa beenooday oo Jubbaland waxay ka dejisay diyaarado hub iyo mas'uuliyiin kala duwan wada Doolow, taas oo ay ku beeninayaan warka dowladda federaalka. waxaana xaqiiqa in dowladdu ay shacabkeeda dhibaataynayso. Baardheere, Ceelwaaq, Boordhuuba iyo garoomada diyaaradaha ayaa xiran, qaar ay saameeyeen amarada dowladdu soo rogtay iyo kuwa aan haysan duulimaadyo aada. Garbaharre ayaana hadda furan oo toddobaadkii wax ka yar 3 jeer ay diyaaraduhu aadaan, maadaama shacab badan uusan aaggaas aadin maran muhiimana aysan hayn. xaaladaha ka dhashay xayiraadda oo dembi caalamiya sababi karaa waxa la isku raacsan yahay waa in cunaqabataynta duulimaadyada garoomada Gedo lagu soo rogay iyo barakicinta shacabka Muqdishoba ay tahay dhigaalo taariikheed oo u yaalla madaxweyne xasan sheekh oo diiwaanka ay u geli doonaan. sidoo kale waxaa ka dhashay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka. dhanka Gedo waxaa la soo wariyay in bukaanno xaalad caafimaad ugu safri lahaa Muqdisho ilaa dibadda ay ku geeriyoodeen deegaanadaas, iyadoo ay dowladda ay xaq ugu lahayn inay daryeesho ay cunaqabataysay oo sabab u noqotay in geeridooda iyo dhibaatooyinkooda caafimaadba inay noolaadaanna ayba u diiday oo xayiraado ku soo rogtay. midaan shaki lahayn waa in dowladdu ay dadkeeda rayidka cunaqabataysay oo aysan waxyeello ka soo gaarin dhanka Jubbaland, maadaama duulimaadyada Jubbaland ay ku tagayso Doolow ay caadi yihiin oo ay duulimaadyo ku degaan Kismaayo una kala boqolaan Nairobi ilaa Addis Ababa. mas'uuliyiinta Jubbalandna aysan dhib ka soo gaarin xanimaada dowladda, taasoo muujinaysa dowlad dadka rayidka u xoog weyn oo ka adaga. ugu dambayn shacabka awoodda u helay inay ka dhoofaan Muqdisho ee u socda Gedo waxay hadda ka degaan Luuq Ganaane, kadibna waxay masaafo dhulka ugu safraan deegaanada xuduudda xiga oo ay dadka ugu badan ka yimaadaan, maadaama ganacsiga iyo caafimaadkuba ku xiran yahay magaalada Muqdisho. madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisa waxay ku suntan yihiin madaxweyne barakiciya inta uusan barakicinta la gaarin xanibaado ku soo roga, taasoo ka dhigaysa in wax kasta oo madaxweynuhu hore ugu ololeeyay ay hal bacaad lagu lisay ku soo dhammaadeen, uuna ku suntanaan doono madaxweyne dhulboobku caadi ka yahay xayiraadaha siyaasadeedna dadkiisa rayidka la beegsadaa.